qodobkeena ugu dambeeya warkeena maanta ayaa sheegaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إذن لهانتين بكسو دوادا وركيني مالين لهاها واتكلا سعون جرتان مرتميديا وركنا وحيدين لسعود سيني سانيقوها نمعدي محمد ومالين أحد تضبية توانكي جانوري لبدا كون كوية لباتنكا ودبدا قدور كران وركينا مانتنا وحا كمدا la beegsaday kolaya baabuura oo la socday gudoomiyaha Shabeellaha Hoose dawladda Djibouti oo sheegtay inay bilowday waxbarashada dadka waaweyn hay'adda socdaalka iyo jinsiga Itoobiya oo xariga jar ku sameysay xarunta xuduudeeda Kenya iyo Itoobiya imika haatan ku soo dhawaada daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan xafladda xusitaanka sanad guurada koowaad ee macadka Daaru Xikma oo ka dhacay magaalada Jigjiga xafladda xusitaanka sanad guurada koowaad ee macadka Daaru Xikma ayaa ka qabsoomay hoolka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xafiiska arrimaha islaamka ee dawladda deegaanka Soomaalida Sheekh Axmed Aabi Mataan wasiirka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed Xuseen wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Mudane محمد فاتح علماء الدين odayaal dhaqameed iyo qaybo kale oo bulshada kamid ah macadka Daaru Xikma ayaa la aasaasay bishii koobaad ee sanadkii 2020 sida lagu baahiyay bogga SRTV aasaaska macadka ayay ku baxday miisaaniyad dhan 3 milyan oo bir oo ay dawladdu ka saaciday xafiiska arrimaha islaamka macadkan ayaa lagu furay arday dhan 33 arday oo laga soo kala xulay 11 gobol ee dawladda deegaanka Soomaalida dhamaadkii xafladda ayaa lagu abaalmariyay ardayda kalmaha hore ka galay macadkan deegaanka Soomaalida ayayna isbeddelkii 2018 ka hor suurtagal ahayn in laga furo macaahid noocan oo kala ah oo ay dawladdu kharash ku bixinayso warkaan idinka hayna dalkana hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Itoobiya oo xariga jar ku sameysay xarunta xuduudeeda Kenya iyo Itoobiya hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Itoobiya ayaa shalay xariga jar ku sameysay xarun xuduudeedka u dhaxaysa dawladaha Itoobiya iyo Kenya xarun xuduudeedan oo ku taal meel u jirta xuduudka Kenya 1 kiiloomitir iyo badh agagaarka lagu magacaabo Saddex-Xagalka ayaa la dhisay iyadoo taageero laga helayo ururka qaxootiga caalamiga ah ee IOM agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Itoobiya Mujib Jamaal iyo saraakiil sarsare oo dhanka dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka ka socday odayaal dhaqameed marti sharaf iyo xubnaha kale ee bulshada ayaa ka soo qayb galay xafladda xariga jarka xaruntan Mudane Mujib ayaa sheegay in furitaanka xaruntan ay sahlayso isu socodka maalinlaha ee bulshada ay yareynaysana tahriibka dadka sidoo kalena laga heli doono shaqo abuur sida uu sheegay agaasimuhu hay'adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay dhaqso u dhisi doontaa xarigana uga jari doontaa xarumo xuduudeedyo ay ka hirgelin doonto deegaamada Soomaalida Gambeella iyo Binshaangul Gumus jaamacadaha Asoosa iyo Maqale oo ay ka qalin jabiyeen arday kor u dhaafaysa 2500 oo arday jaamacadaha Asoosa iyo Maqale ayay ka qalin jabiyeen arday ka badan 2500 oo arday oo dhiganaya kulliyada kala duwan sida ay sheegtay warbaahinta Faana jaamacadda Asoosa kaliya ayaa waxa ka qalin jabiyay 2182 arday oo ay ku jiraan 145 ka qalin jabiyay darajada sare ee masterka iyo wixii la mid ah sidoo kale jaamacadda Maqale ayay ka qalin jabiyeen 344 arday oo ay ku dhawaad 137 arday yihiin dhadig warkaan idinka hayna dalka dibadiisana waxa kamid ah daawadayaal dawladda Djibouti oo sheegtay inay bilowday waxbarashada dadka waaweyn dawladda Djibouti ayaa sheegtay inay bilowday waxbarashada dadka waaweyn wasiirka arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Djibouti Marwo Muna Cismaan Aadan oo BBC-da waraysi siisay ayaa sheegtay in waxbarashadan la barayo haweenka loogana golleeyahay in lagu kobciyo garaadka haweenka wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay in waxbarashadan looga dan leeyahay in ay haweenku awood u yeeshaan wax akhrinta iyo wax qorista qaar kamid ah haweenka ka faa'iideystay barnaamijkan oo BBC waraysi siiyay ayaa sheegay in ay hadda awoodaan wax akhrinta iyo wax qorista hadda ka hor ay ku adkayd inay magacyada caruurtooda xataa qoraan kan oo ah qodobkeena ugu dambeeya warkeena maanta ayaa sheegaya qarax lala beegsaday kolaya baabuur
oo uu la socday gudoomiyaha Shabeellada Hoose sida ay BBC mareegteeda ku soo qortay. Wararka ka imanaya dhanka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday gudoomiyihii Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Siidi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. qaraxaas oo la dhigay gaarka Jasiila oo u dhaxeeya degmooyinka Wallaweyn iyo Afgooye. ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ayaa laga soo xigtay in ay sheegeen dhimashada 4 askari iyo dhaawaca taliyaha ciidamada Commandos-ka Danab iyo askari kale. BBC-da ayaa sheegtay in aan wali lahayn warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada ururka Al-Shabaab. ila ka agdhow ciidamada militariga Soomaaliya oo BBC u waramay ayaa sheegay inuu dhaawac sahlan soo gaaray taliyaha ciidanka Commandos-ka Danab Gaashaanle Axmed Beeryare iyo askari kale. waxay sidoo kale ilahaas u sheegeen BBC-da in ay bad qabaan gudoomiyaha gobolka iyo ciidamadii kale ee la socdayba. warkeennii maantana daawadayaal waa naga intaa markaa xigta hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan Allah.